السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال مسلمين الصوماليات مeel kasto joogtaan mar kale waa walaalkiin wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen xiriyaha qaxootiga dhadhaab gobolka Qoyi Bari waxaan maanta la joogaa walaalkay wiil Soomaaliyeed Farxaan Maxamed Salaad Farxaan Bishil Farxaan Salaad Maxamed waa wiilkii bil ka hor ee xaaskiisa gubtay magaalada Gaarisa isbitaalka ku jiray muddo bil iyo maasadaada aan soo bandhignay isagoo aad u dhibaataysan halli karin filimada ay lugta uga suran tahay dhaqdhaqaaq jirin Farxaan maanta dib loogu soo celiyay xerada qaxootiga ee Dhagaxley toddobaadkan maanta marka gurigiisa ku soo booqday meesha uu joogo Farxaan baan sheekaysanana Farxaan aad baan ku salaamullah iska waran bal alxamdulillah haye ilaahay mahdi haye waxaan sheegay waa dambi haye ilaahay wuu naxariista waa ka dhimantaan qoor fadhi maasha ninkii darada garanaysa aad iyo aad goonka la qabtay aan halli karin fariisan karin midaarahay alxamdulillah ilaahay wuu naxariista maasha Allah muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan waad mahadsantihiin aad bay u soo gurmadeen reer Gaarisa sidoo kaleeto ilaa waa dadkan la joognay aad iyo aad ku dhex jirnaa aad iyo aad oo xaafadaha marka raashinka soo booqanayso kala orday waad mahadsantiin inigana ma sha Allah muslimiinta dhamaan meel walba ay joogto way mahadsan yihiin aad iyo aad maxaan baaruudna wuu mahadsan yahay ada mudan taqaatiirta aan ka imaadayna sidoo kale way mahadsan yihiin ayagana aad iyo inay arki doonaan u maleynay adigoo fiicnaaday bal mahad celinta iyo mahadnaqa waan u imaan doonaa Farxaanow waxaad nooga sheekaysaa qisadan xid si dhabtii qaabka u dhacday iyo goortay dhacday iyo saacada ay garanaysa ma jirto qof kaste xilliyo kala duwan baa la sheegay bal noo sheeg qisada goortay dhacday sida u dhacday bal intaad ka xusato noo taxliili wallahi qisada way dheerta wax maanta laga sheekan karo mal waa aadiyad ayadoo xanuunkii sana bil iyo xoo laga joogo qisadina waqti kala soo socotay aadiyad waa wax soo socday aadiyad gubniinka oo kale ka bilow waqtiga gubniinka waxay ahayd maalin khamiis saacadana ay tahay 3 saac oo subaxnimo maalinimo caadi haye alxamdulillah taariikhdan waxay daatiin waxay bisha 11 marka wallahi maalinta waa maalin naxdin leh aniga marka sidaan la socon xaaskaada ku gubtay Soomaali xaaskeeda gubtay marka bal habeenkaas intaan maalintaan u imaanin habeenka ma isla barideen jawigu sida ahaa sida wax u jireen wallahi habeenkii ayada shaqay ku maqneed meel hay'adda MSF waxay ka shaqeynaysaa meel maternity oo naaska ahayd caafimaad waqti 12 ay aaday oo soo galabnimo haye kulli waqtigaas shaqay aaday ani shaqay ugu maqneed aniga carruurtayda isku soo harnay aadiya carruurtu meeqa waa carruurtu waa 3 ma sha Allah yimid caloosha ku wada hadda waa xaamilo aadiya marka waqtiga ayada aniga carruurtayda wadii markay bixisay si fiican naloo macsalay nabad baa jirtay haye nabad bay iga tagtay haye anina carruurtayda hadee garoonna kama aadin damaashaad kalena ma aadin ayaga aabi hooyo waa badkii baan isku ku wada ciyaar aadiya waa habeenka 12 ku ahaa maqrib baa la gaaray maqrib kadib hadee waa carruur intay soo joodi waa iska garanaya labada saac way iska saxdeen anina badkii oo ma bixin hadee waardiya banaayo ayaga waardiya ka alxamdulillah waagi si nabad buu noogu bariyay waagi habariyay aniga qofkan tuhum kama qabin shaki ma qabin sax qof iska caadi ah maqano marka ayada oo shaqo ku maqano nabadna aad ku kala tagteen aadiya kutrikuteen iyo meelaha sheekay ka maqsad bilaadanku uu hadlaa intaan jiifaan ugu xoro iska sheegay oo maseer ku salaysan waa u imaan doona la yiridaas la yiradi dhacdo caadi oo ninkay ku dhacdo aniga tuhum baan ku dhintay sax tuhum shaki sax waxba aan jirin xaas kale ma qabin xaas kale waxaan ku gursaday ma hinin nin qaxooti aan iska ahaa ayaga la daala dhacay ilaahay ku madad naqasana wada joogteen almost 2014 uu dhacay bishii 3 2014 bishii 3 dibkiina wuxuu dhacay 2019 bishii 11 hada waa 5 sano 5 sano saddex carruur ilaahay uu nasiib ma sha Allah midna barashaas buu ku jira xaga loo ka soo socday ma sha Allah hawa hatade marka waagi baa bariyay gabadhu wali way maqnayd
ولي وقتي أي وقت لو يصير خصن جرت عروتي أسوء أرجس لكن ما أنت أيده كنت لي كتاني شيء كم لا لو شيء صدق هذا يكون صدق هذا هي أخبار بصورة نسمة ده شكلي هذه وشيدان أم جيرنا الله عليك ninka shaqay waxba kuuma maqnaan maalintii maqan daniisu ku maqnaa de bilcaan sheekadeedu bay ee soo qaaday waxaana ayada marka ayada naga dhaxeeyay mas dagaal ma jirin waqtiga iga tagaysana ayada qoslaysa iga tagtay waqtiga iimaanaysan qof bedelanay imaada aniga ma qasab iimaad waxay imaatay 2 saac oo subaxnimo صح isbedelkina 2 saac ilaa 3 saac u dhaxeeyay بيه أنت اللي كركرينه. مركب الحناش أكتر مركب ماتي جوي كلا لا ماتي إسبدل هذا. إسبدلها. هي. عرفت الأونس محاوي وحيانا لو جوين لأن نقطة وقف حنا أقصى. وعلى إنه تتعرض. وببالس كذا مكان هذا. هذه إسبدل ير. يندرنت. صح. يعني قاعد قاعد بس معنا. رباحنا مطورين. وإذا درنت على المدينة. qof bedelan in markuu arkay aniga waqti ayada waan dalna biyaan soo dhaamiyay qoyti waad garanaya tuuba kala biyo ka soo qaaday reerkii baa caruurta meesha u sikarisay tarayan soo sameeyay ayra darjnay agtii barkan dhigay joodari nafar aday nin gurigiisa ma garan gambar mu ku fariisana wixii u yaalo koor imaad mu ku sallina laakiin nafarkii aan isku tuuray qofkan intaan maqnaabo ilaahay kuma daran isbedelkii biyihiisu iska sii karkarsanayay tabka shidat haye aniga tuum marka igu ma jirin waan ka sii tagi lahaa tuuna ugu jiro hadaan qala sameeyay dileen waan ka sii tagi lahaa ilaan meel wax ku sameeyaan hay inna hayrat wax cabsi iyo wax irdad qabto mala ma qabin ana xageeyay saafi aan iska hawo qofka aad cabsi ka qabo biyo lagu karkaraneen ma ana isdhiila waan carar lahay waa ka tagi lahay ma lahayn aadiyad way dhacday صح tuuna daan qabo waan carar lahaa صح qoftuhuna aan qabino iska lilaahi oo habeenkii aruutiisa la bariyo ayadana shaqo ka imaato qof bedelan markaan arkay ani waa mandaalnay marka xoolo nasaan la dhididka ka jaw aadiya joodari baad ku seexatay gar waxaan qabay garan finaashaatiga meel iska dhigay garantii macbiistii aan soo baxay dhinac soo tuuray dhanka bidaxa u seexday صح dhanka midiga biyaha iga man doonaan waa 3 saac markaas waa 3 saac waxna alxamdulillah ilaahay habeen iga dhigin aadiya islaamka isdhex urdaa waaga soo bariyay markaas la isdhex qaaday gaari jidka maraan baan marka biyaha noo sheeg sidee u dhaceen waad jiiftay ma gamaada ma gamin qof dhidisana aadiya dhididka kugu jaban baa u jiifay waa soo jeed صح hadeen inta la waagan xawa nasashada uu iska maxaasanay joodarina ku jiifta markintina waan dheereysay tuhum bay ugu jirin gurigiisa jooga aadiya marka biyi baafa lagu waday aadiya maxay leey jigta hore marka kaliya iga dhacday dhaawac kaliya ka bilowday gacantan sansana u jiifay dhankana biyaha ka bilowday awood baa igu dhacday qofka halkan taagana taa iska celin waay صح war maxaa si ka maxaa diidilidan hal yaraa soo haray inda wajiga iska dhigay waa wajiga qayb fiisan iyo firirkan iyo xabadkan arkayso waa firir waa hal yaraa ku soo haray ayadana waxay dhahday soo boodee iska celi aadiya aan marka ayada kood hore ugu shubtay cadaab nin lagu dhaxrido baan way ka waad awood beesh awood iska daay hortii hata isana saayiga leexwandhiyo waxaan ku fiicnaa guriga ma jirin barandaan jiifay aadiya guriga inay cararto uu ku dilino isku igu xirlaan ilaahay markii hadda ilaahay isku tutusi barandaan jiifay aadiya horlay ka booda ama cararay albaabkii badkan ka baxay صح jidkan ku dhacay taxi iska socda isoo muslim uu leeyahay wariis adoo markaas bedelan intana ay go'onta صح ilaa halka way biyo ku soo istaagaan biyo me weeba go'day sidana kale noqoto صح qabta arkis aadiya yaa noqoto dhaqso waxaad u malayn qofka in maqaarka laga siibay dab la dhax geliyo aadiya qofkii arka weeyaan way argagixi hadii nin magaalada qaxootiga ku dhashana waa qof walba way garanay intaan ku badbaado inta taksiili wax dhaqso gartay oo isoo dafay صح اما سف البابkeedu istaajiyay istaalka caafimaadka ee xirada dhagaxle صح kadib albaabkeedii waardiyi markuu arkay waasase albaabkan buu fiiday waa uu sii dhax jiray nin karsan aha garan iyo waxaan qaba markaa maxuus صح emergency isku toosiyo waan barbaray dadkii la dadaaweynaayo iska bukaanka yar aha amar kabti waxaan fariistay dhakhtar ku fadhi صح war soo gaara war irbaday ugu daro war wax la ugu dhufto nin holac oo dadkii la arkay adiga dhabad gubanaysaa qiiq iyo holac dadka ay la arkayna aan arkay waan qiiqaya takhatirtu way sistay albaabahan bay xirteen bukaankii yaraa meel baa bakin la geliyay amki taal
aad bal wala tacaala sax dhaqaatiirtii ama irbado meeshan intay go'in filimada way ku jirtay markii la qaadayna way siiman doontaa way iska dhacday maqaarkay raac laakiin waa daawadii wixii dhan waan ku qaatay waqtiga ayada daawada waqtigaas gacan dhan ugu dambeysay markaan isbitaalka MSF ka baxay dhagaxley marka halkaas aan ku yar istaagnay ma miir daboolanta intaas markii lagu daaweyn hayay mise wali miirka waa jooga mama miirkayda wuu joogay oo macnaha qof sas yar sas ugu jira saska in xalintaas mooyee lan waa dabkii waad gubad waan gubtay irbada lagu dhuftay intaan filimada ugu socotay baa miir lahaa aad meeqa habeen baad joogtay marka dhagaxley marka dabkii ugu dhacay mama waxaan joogay waxaan imaaday 3 saac iyo wax intaan soo socdo ilaa 8 saac kadib waa lagu qaaday kadib ribaara la gudbiyay ambulance soo istaagtay gaaris baa lagu qaaday gaaris la ilaa aad gaaris baa tacaali adduun iyo waqti ba soo marnay waa kaani hata kugu iman jiray laga ma sheekeenaa kiyadii soo booqay aad Allah ku siiyo ay muslimiinta dhan isoo gurmadeen alxamdulillah waxaan soo maray wallahi wax laga sheekeeyo waa ma sha Allah farxaanow xaaskaadii oo sidaad sheegtay sida ku gubtay ma bal noo sheeg dadku waxay leeyihiin islaamka lagu qabay mid buu meher xadahayay wax bay leeyihiin adiga bal noo cadee sidee wax u jiraan ma gabadh maxay ka shaqaysay waxaas wax jira ma sidaan ku sheegay tuhun oo macnaha pen ah la yiri waxa kama jirin waan gartay hadee nin qooqa markaasna qooq ku jira ma bahan aadiya qooq ma bisiin ilaa ninkii mugtado reerkaada dalay reerkala duu hami u galo waan reerkiisa hor ka soo adkaa aadiya hadee reer cusub hadaan rabo waalidka ogaan lahaa qaraabada ogaan lahaa maxamed qarisan wax ma qorsoomaayo ma sax hore ma maqashay ama mu aragtay nin la gubay inta lagu gubin adiga dhigtay waan ka maqli jiray haye laakiin aragti ma kor istaagin aragti nina islaantiisa gubtay waan maqli jiray aadiya dhigtayda way ku dhicin jirtay ma filays waxa filays ma hada ma lahayn cadaabtana adduunka kugu sugay waxay noqotay mid ilaahay ii qorneed waqtigeeda dhimashadeedii ka soo horeysay aad dambi dhaaf Allah kaaga dhigan hadan kulli dhimashadeedii hadii waqtiga ku ekeed waa waqtigiisa soo galay laakiin waxay noqotay qadar rabbi kugu dhacday waad mahadsantahay daawadayaal dhegeystayaasha ama daawadayaasha hadda nagu soo biiray waxaan la joognaa walaalkeen Farxaan Salaad Maxamed Farxaan oo sidaan sheegnay hore u gubtay oo runtii mar khatar galay oo maanta alxamdulillah soo caafimaaday baa nooga sheekeynay taariikhdii oo ku maasanta waqtigaada gaaris baa lagu geeyay aniga xitaa waan kugu imaaday aad bay ola yaabeen dhibka kugu gaaray taariikhdan inta la xusuusan yahay deegaanka Dhadhaab iyo xiriyaha qaxootiga qofka ugu darnaa baa tahay sida loo gubay dadku markay ku imaadaan ama ku soo booqdaan waxyaabihii ay ku dhahayeen maxaa kamid ah maxaa ka xusuutaa dadweynaha nin walba fikir uu gaadhay waa lagu soo daawashada xitaa dad daawasho maado booqasho maado dad wiil baa inta ku gubtay bal fiiri uu maado dad diin saarayo ilaahay ku mudanta dad iga naxo ku duceynaya qof ii duceynayo qof soo taagna iska dhacay ani dartii macnaha dhaabac uu yaalo ma arkay qof iska ooyo aan garanaynin waa arkay muslimiinta ma sha Allah waa boqolkiiba boqol wajiyo badan nin walba Soomaalidu aad ku naxariis badan ku dhiirigelin aad marka ka waran gurmadkiisa Farxaanow bal Farxaanow gurmadkii ka waran waa kan ku imaaday Dhadhaab ka soo safray barnaamijka duubay jawaabtii Soomaalida gurmadkii ka waran sidee noqday ma sha Allah jawaab degdeg baan aad iyo aad dali dibad gudaha dalka ma sha Allah Soomaali dadka Yurubka joogay qurbaha meel kasta meel walba meel aan ku dhinade dhulkan cirkan inta ku jirtay aad iyo wax naxo Soomaaliyo siba Soomaaliya aad iyo aad waa ummada kale la mid maaha aad iyo gurmadkaasna muhiim waxay ka mid tahay qofkii caafimaadkiisa daawaha duu rabo cid uu barnaamij la walaalkii baa caabiyo daawo doonan kara aad iyo laakiin daawo waxaysan maxaa daawo ku doonan waa meel cidlaad ku dhigay laba qaab isma qaadaan sax alxamdulillah muslimkii gurmadkiisa si degdeg u soo gaaray
إذا أنا سؤال المال ما شاء الله قف عن قرنين إنه إيونا وارك ما شاء الله قف عن قرنين يكون إيونا كود عينه يدعينا هذه قعنتي سنة يسوق وارك هذه الحمد لله مسلم كوان كم هتينا صومالي ذينا غير الله سيا ما شاء الله قرمتكينا محمو وآدي ديرجلين عافمات كلا وايو ما شاء الله و نيادك كبوكست أديات dadka Soomaaliya say ku garab istaageen haye أديات قف كو إمادو كديرجليو سانيل كنيا ku dhaho ها واد أركي قف كو إمادو كو تعسيين أصلا أو إشي سأد كدريم إلين واد أركي قف كاقوس السيا واد أركي ما شاء الله قف كايا بيا أركي مدي يقول يا بد مشان تفيري حاسمه مدي يقول يا بنات عاد وان تمين شيكه مدي يقول يا بنات أنيقو مركا مسؤول كيما أو إلهي كون بدرناتي سريرتي usoo socdo aad oo staal gaaris ku jira isbitaalkii gaaris ku jiro qolkii hore la ikeen ku jiro yaani oday daadiis markaan fiiriyay konton jir mara baatiyan qabay marka anay macbiis iyo waxyaalaha isku diirin wixii baatin buu ahaa oo soo booday wuxuu yiri wariya gabadhane yaagu anigi wax iga sheegan gabar buu ku malay gabar buu imalay ilaan baatin buu arkaa marada baatiga dumarka oo gab igu ah madaxan xumalana in laga xiro halaan yar lii reebo gabadhane yaagu sax anigi wax iga sheegay yaa qosla sax marka waa kaftanka mar caafimaadku ka mid ما شاء الله ما شاء الله فرحان waa mahadsantahay waqtigaadana aad baa ugu mahadsantahay aad baan runtii aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinayaa in mar saddexaad adigoo waliba gurigaadi jooga caafimaadkaadi wax badan iska bedelay oo lagu soo celiyay aan kula sheekaysto waliba maanta hilib baad noo qasheen oo hilib aan ka dharagay martiqaad badan noo sameysay ma sha Allah aad baa mahadsantahay dadku waxay isweydiinayaan gabadhi sida ku yeeshay maxaa ciqaab oo la mariyay sidee la dhahay bal nooga sheekay wallahi ciqaab horta wax la ma jiro ciqaabtii anigu dhacdo bay ku ekaatay قير الله سيد دقابي أبيس بانولاو هذا أبها بانولاو صح dadka waxay dhahayaan ninkii oo istibaalka jifo wiilkii waa cafiyo ilaahay kuma darnaatay yaa la taaban u dhahay yaa la iga taaban inuu dhahay waa maqlay dadka dhigtoodun laakiin markaas nin miir doona ahaa aad waxa kama dhow sax duqa aabahay abiis baa nool awoogi wuxuu yiri cid taaban karta mala gabadha lama taaban karo ayada qaldantay lagama daba qaldamayo sax lama taabanayo wax la yeelay ma laha sax adoon baa loo dhiibanin gal baa gacanta xitaa lama xirin xiritaan ma jiro wax saa u fiiri ma laha sax waliba guriga ugu gubtay 3-4 maalin sii joogtay ma sha Allah dib u sii joogtay wax weerar wax dhib loo geysan ayri waxaan dhalay wixii dhalaybo gabadha ninka fiiriyo suul gooryan ka gaabiyo oo habaartay faraha laga qaad anigu qof bukaan ii jifa listaan umar wiilkeeda waxaan rabaa inuu ii soo caafimaad qabo haduu dhinto waa taas qaraabay u taala aad iyo laakiin hadda ayada qaldantay asagii aan horta meel ku soo ogaano yaa laga daba qaldamin afar bari kadib ayadoo la qaaday cidoodu iska geeyay sax ayadoo nabad qabtay sax waxba aan leeyahay aad iyo ma kula soo hadashaa soo xiriirisa هذا الحريري سدي كل سيدين هوري ما أنا هي ويس بدي شايد نفتي دتكي عادي والدك إلى جوجي ويل أديركي أصلا رجال مركز برتي تلفون كيس شيء dad bay soo wixii igu dhiiba in Allah hadaan rabaa caafimaadkiisa ogaan rabaa way ka naxday ka qoon goonkan heena wax telefoon ku hadli karo ma jiro waa run telefoon ma haysanin kaliina waxay rabtaa in la jiido mugta neefta neef jiid ma lahayn telefoon kuma hadli karo qofku inuu neefta jiida fiican ninka tiirkiisu waa yar yahay ma hadli karo telefoon ku hadla marna almost adiga 20 days telefoon kuma hadlin maalintii kadib yaan qaraabada iyo waalidkii inta soo jiray iyo ka qaqabad waan fiicana alxamdulillah niyada khayr u sheega ayagan macnaha niyadis wada marka ilaahay mahdi مين وذا حريرين وذا حرير هذا إلهكم دنا تساء مجرين لكن وقت أن دعوة علصها يدري سواء صح عتري ده فرحان وده آخر دون اكتساج جوته لو مت سماه ولا دمنا دون كان عفس كان أذوق أنفع واحد غير يقول عفي ده وسان ويا المجرو لكن عفس كت عادي دم كوي هو ده نيك سمرنا وحلو دري دتك أنت سمرت سمرت صابرين تلو دري marka de nin dhaanac nawata waxaan noqon war loo maayo nolol ma u dhaxaysa ida iska cafi sax
والد كذل كيسوانيله وعافي حق الله كعافي عنده ما شاء الله كود وعافي حق الله كعافي ما شاء الله إلهي أنا درت إنه كوي عذاب إلا أنا نيجا دان إلهي وقف كسيدا ويقول إلهي درت عبادها إلا إلا دان قير هذا إلهي ما عفنا هادية إلا إلهي داخلت كيش أسوق عفين لكن أمدي سخلت كيش وإلا قف كإنه كوي هادية يعني تي حاجة الله آخر هذا وكعفي ما شاء الله لكن سومالي مرخاتك هذا عفيسك مهمة دولي وحيابا ير oo intan ka yar baan isku cafin lahayn anaga laakiin farxaan wuxuu cadeeyay gabadha sidan u gashay lama xirin lama qaraacin hadal xun lama dhihin il xun laguma eegin wuuna cafiyay farxaan oo su'aasha kale ku weydiin waxa way gabadha hadda wali xarigaad ku xiran yahay rajo ma ka qabtaa inaad dib ugu laabato mise waa sidee taas dad noo iftiimiso ta hada qof horta xanuunsan baa aminkan ilaahay kuma darnaatee kama jawaabi kartid horta waa jawaabtu way iska fudud maama aan ku soo qaadan aadiyad nin hood inuu galay libaax barida hal bari ka gooy hadii hoodkan kugu celino kugu riixi oo libaax fadhiyo libaaxina fadhiyo geesinimo ku gala malaha aad bay adag arinta qofkii noloshii hore wanaagii jaceelkii waa gubtay sidoo maqaarkeedu gubtay absi aan ka qabo aadiyad absi aad weyn aan ka qabo beenku ma sheegay wallahi billahi baarudow horta hoodkaas aadiyad way adag tahay wad si fiican u jawaabtay aadiyad hood halistaasna nin bareeri kara malaha aadiyad rag badan baa sas ka qaaday dhacdadaas darteed dumarka qaarkood aadiyad wax laga cabsado rag badan bay cabsi gashay ana aan ka cabsanayaa ilmaha isku dhalanaya aadiyad lacalla hadii ilmaha soo boqoto حاجة عروت هذه حاجة كفير صح حاجة هنا فدي موجي وقتي كريم حاجة بقى إنه بالدي كلامي سبحان الله مركب بالدي يس واحد هالمان غير معها واحد ويديري ما بيك ليها المسوح كلا الوضع ترى والله عيدي لاجد لين بالشيء بس بالشيء waxa hadii la sheego waxa noqon in dabki sugay aadiyad beenta ma sheegay warka mays aad biyo kulul dhaho horta saliida day tahay inta islamaan hadleen aadiyad way ka darnaan leed gudaha ku dhicleed jirka ii dhici lahaa ilmashaysa way la tadwiil darad saliid lagu soo gooshin bari uu buu joogay uu dhintay dhimeenkii sax anitiida ka dhinay aadiyad wixii inuu biyo awood waan arkay biyo inay yihiin waarkay dumar badan baa falkan aad u cambaareeyay dumarka Soomaaliyeed meel kasto joogan ummadda Soomaaliyeed way cambaareeyeen way dhaleeceeyeen way ku soo duceeyeen wax ay dumarku ka siman yihiin ama raali ka yihiin maaha waa gabadhana kulay dadku waxay dhahan islaanta markay gubayso ninkeeda jacayl bay ka tahay ma aaminsantaas jacayl ma جعل كبدوساسي جعل بس وساعد الله جعل بعد هركا مرة دي بلسقوبها أنا ما نقول نورت إلى هذا الرج أو إنه بيكر كري إسلام كل شبه ودي وين إمتى وما قلبت لكن أدونكم عذابنا بيا ورا توريا كودانتا ودن تايبا كودانتا صح والله بلا بال هنا كوكاشا كودانتا صح قالتها ما ودي جرا وايد على لكن قف نونو إن كركريسو بيو كردو دمشي نولا لو دحيو waxa ku dhama qof ku dhintay aadiyad wallahi rusida dhintay عذابتي soo arkay maqaar go'an soo arkay xanuunan soo maray waxa ku dhama qof toori ku mariyo aad baan ugu faraxsanahay inaad cafiso walaasha oo ubad idin maaragtay caruur ku dhashay oo muddo soo wada nooleedeen iyadana waxaan leenahay maadaama walaalka ku cafiyay 10 ku noqoto gabdhaha Soomaaliyeed ee kale ta faraha badan waxaan leenahay masayrku yuusan noqon jacaylku yuusan noqon kulli isku gubo farxan wuxuu cadeeyay hadduu wuxuu yiri jacaylka la isku gubayo hadduu wax jira ma yahay wuxuu dhahay halkiisa ay joogo marka aad baad ma santihiin farxad bay ita mar kale aad baad ii soo dhaweysay sida maaragtay igu sheekaysay waqti badan ma ka qaatay raalli ahow ma sha Allah ummadda Soomaaliyeed ina waqti kula qaata ana waan ku waayay ma sha Allah sariirtii aan saarnaa aad iyo aad maanta alxamdulillah caafimaad waa maanta adigu ku arkay waa aad iyo aad ilaahay mahadi waa ilaahay loo shukriyo farxad bay ita aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed waxa farna u dirleed ama masayray ama kuwa masayr ku jira hafarna u dirleed horta masayrkan waa halis aadiyad halis aad u loo bareero horta qatar ah gabdhaha walaalay waxaan dhihi lahaa wiilka intaa gubi leed kabtu joogo oo tag isaga tag sax ha gubin ha dilin waxaa ku dili kartaa maadaama uu saa uu kule oo ilaahay kuma darnaatay uu adigii dad kale uu ka daba keeni karaa oo aabadhaada adina amasirto waxaa ku dhaantaa
adigoo badkiisa u firaaqayso ka tagta meeqaa ka isfurtay aad iyo aad waa la oo kala isdilin. tagay ma hali sharcigana saas u banay ها laakiin farxaan waxaan ka baqay marka hadda cafiskan maadaama fiso qof sa wanaagsan oo furfuran aad dalabka gabdhaha inuu bato loo ninka sida u samirka badan ya waxaan filayaa markii dad dalabaad badan aqbali doonto dad caafimaad dad badan baa ku soo codsan doona gabdho badan بين كوم شيء ولا كفتمنا طبعا سنة كذب بالآن ما في ركض وأنا يرى ازدجاج الحمد لله hadda iskuma aamini kartid الحمد لله bal isdii kara dumarkii dhamaad ka aamin baxda أمين به وسكي مامبو haye سلعة أنتو جرو أمين به aad iyo aad وسكي مان تاني ياس كونسيرت فاروا كل ينا نقول جفت ha هاي ood soo kabsato سو كبسة صح. كبسة ما تاني ياس كبسة ما حلوسة كبسة كرا سيسمات يوم كير لكن waad maskaxda dejinaysaa هاي دق دقاسها بن عبسك دق دق خرانا قال aad iyo aad أنا يرى قال aad iyo aad الحمد لله كم قصارن ya maasha دادو Allah إلهي سي ubad baad heshay Ha. fara badan هذه almost كمان سنة قد بدي بمفيرين ما شاء الله، ما شاء تاني الله. ياس كونسيرت daawadayaal meel kasta joogtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin daawashada iyo dhageysiga muuqaalkan farxad bay noo tahay mar kale walaalkeen oo gurigiis ku soo laabtay oo dhagaxle ku soo laabtay waa aad u wanaagsan inaan maaragtay aan maanta la sheekaysano aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaa waqtigaada insha allahu Insha Allah. waxaan rajeynaynaa adigoo labisan ama xilli aroos ama xilligan ka farxad badan inaad isugu imaan insha allah waxaan ka codsanaa arooska xiga inaad iga qarin إن شاء الله هذا ما سنتهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته